nin ayaa lagu waday in xabsi loo diro balse wuxuu u ekaa mid aad u degan. murqo 8 qaybood ah iyo khadad fiiqan oo caloosha ka muuqda ayuu lahaa. jid kaamil ah ayaa hortooda taagnaa. indhihiisa kulul waxay cabsi gelin kareen qof kasta balse waardiyaashu haba yaraatee ma baqin. waxay si toos ah ugu buufiyeen biyo cadaadis sare leh kadibna si fudud ugu rusheeyeen budo baaruud ah. wakhtigaas Jason ma lahayn wax kale oo uu sameeyo aan ka ahayn inuu xanaaqiisa liqo. isagu ma uusan ku dhiiran inuu iska caabiyo. wax yar kadib waxaa lagu tuuray qol xabsi ah. markii uu dhigay dharkiisa maxbuusnimo sariirta, mid ka mid ah maxaabiista ayaa si saaxiibtinimo leh ugu diray dhunkasho hawada ah. isagoo wajahaya indho xun oo ku hareeraysan Jason waxba ma uusan oran. markii ay waardiyaashii bannaanka joogay damcayn inay baxaan, qaylada ka timid gudaha qolka ayaa soo jiidatay dareenkooda. waxay u maleeyeen in Jason si xun loo garaacayo, waxayna u soo dhaqaaqeen si ay u daawadaan. laakiin markii ay gaareen albaabka qolka way yaabeen. dhammaan maxaabiistii gudaha waxay yaaleen dhulka. Jason wuxuu si fudud u yidhi hal eray, way simbiriireen. waardiyaashii aad bay ula yaabeen. subaxdii xigtay markii Jason u aaday qolka cuntada si uu u quraacdo, nin madax bidaar leh ayaa si lama filaan ah ugu fadhiistay hortiisa, isla markiiba bilaabay inuu kiciyo. isla wakhtigaas madaxa ninka bidaar leh ayaa sidoo kale yimid. Jason ugu dambayn wuu xanaaqay, wuxuuna ku sigtay inuu cashar u dhigo ninka madaxda ah. nasiib wanaag, waardiyaashu wakhtigii ayay yimaadeen, waxayna joojiyeen xaaladda inay sii xumaato. kadib waxay Jason u kaxeeyeen inuu la kulmo maamulaha xabsiga iyagoo uga digaya jidka. ninka uu dhaawacay wuxuu ahaa darawalka tartanka ee xabsiga, maamuluhuna ma jeclayn qof kasta oo dhibaato ku keena darawallada. markii Jason galay xafiiska, maamulaha xabsigu waxay bilowday inay sharaxdo xeerarka xabsiga iyadoo hadallo ku kicinaysa si joogto ah. laakiin Jason wuxuu ahaa mid gebi ahaanba degan. iyadoo aan lahayn wax kale oo ay samayso, maamulihii waxay shaaca ka qaaday ujeedadeeda dhabta ah. waxay rabtay in Jason uu beddelo darawalkii dhintay ee Frank oo uu sii wado ciyaar aad u halis badan oo la yidhaahdo tartanka geerida. qayb ka mid ah heshiiska ayaa ahayd in haddii Jason ku guulaysto 5 tartan oo xiriir ah, laga sii dayn doono xabsiga, xorriyaddiisana uu dib u heli doono. markii uu maqlay dalabkaas, Jason isla markiiba wuu aqbalay isagoo aan wax shaki ah muujin. kadib maamulihii waxay u kaxaysay garaash, waxayna ku wareejisay tababarihii hore ee Frank. laga bilaabo wakhtigaas, Jason wuxuu galay waddo aan dib looga soo laaban karin, waxaana ciyaarta halista ah ee loo yaqaan tartanka geerida ay ku dhowdahay inay si rasmi ah u bilaabato. maalin maalmaha ka mid ah, markii Jason bannaanka ku nastay, si kedis ah ayuu wax u arkay. gacmo xirayaasha ay xirnaayeen shaqaalaha xabsiga waxay la mid ahaayeen kii uu xirnaa ninkii dilay xaaskiisa. Jason isla markiiba wuu fahmay in tani tahay qorshe isaga lagu bartilmaameedsanayo. laakiin haddii uu doonayo inuu ka baxsado xabsigan, ma uusan lahayn wax kale oo uu sameeyo aan ka ahayn inuu u dulqaato hadda. wax yar kadib, maalintii tartanka ugu dambeeyey ayaa timid. Jason weli wuxuu xirnaa maaskaro xanuun badan leh, isagoo qaadanaya booskii darawalkii dhintay ee Frank. Jason wuxuu galay goobta tartanka, darawalladii kalena waxay fuuleen gawaaridooda. kadib bas ayaa ka soo galay gudaha xabsiga. waxaa ka soo degay haween aad u qurux badan. ma aysan imaan inay daawadaan tartanka, balse waxay ahaayeen hagayaal u ah darawallada. haweenay madow xiran ayaa noqotay hagaha Jason markan case. markii ay gaariga galeen, labadooduba waxay isdhaafsadeen salaamo saaxiibtinimo leh. magacaygu waa case. Frank. waa yaab inaadan ii sheegin, Frank. markii ay aragtay jahawareerka ka muuqda indhaha case, Jason wax sharaxaad ah ma bixin. isla markiiba markii daaqadda la xiray, si go'aan leh ayuu uga saaray maaskaradii been abuurka ahayd, isagoo diyaar u ah inuu tartanka si furan oo aan wax xayiraad ah lahayn u galo. hal amar oo keliya oo ka yimid maamulaha xabsiga, ciyaartan dhimashada leh ayaa si rasmi ah u bilaabatay.